Assalaamu calaykum daawadyaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Filimkan waxa uu ku bilaabanayaa boqortooyo aad u awood badan taas oo ku taala bariga dalka Hindiya. Waxaan halkaas ku arkaynaa boqorada tuulada taas oo u imaatay goobta si ay uga qayb gasho xafladda sanadlaha ah ee iyagu qabtaan. Isla markaana waxaan arkaynaa xafladda dhexdeeda waxa ka socotay iyadoo dhex socota shacabka waxa si lama filaan ah u soo baxsaday maroodi waalan taas oo qof walba oo hortiisa yimaado weeraraya. Dhammaan dadkiina waxa iskaga cararayaan goobta marka laga reebo boqorada. Abaanduuluhu waxa uu sheegayaa inuu ka kaxayn karo goobta laakiinse waa ay diidaysaa waxayna u sheegaysaa inuu badbaadiyo dadka intooda kale iyaduna ay meesha sii joogi doonto. Ugu dambeyntii maroodiga markuu ayada dhankeeda soo fiiriyo waxa uu soo cararaya sida qof waalan oo kale laakiinse intuusan soo gaarin uu wax dhaawac gaarsiin waxa goobta imaanaya Baahubali kaas oo ka joojinaya inuu dhibaato gaarsiiyo. Dhammaan dadkuna waa ay ku farxayaan halkaasna waxa uu soo dhamaanaysa xafladoodii waxayna ku soo dhamaanaysaa si qurux badan. Dhanka kale waxaan arkaynaa oday xaasidaha kaasoo ka soo fiirinaya dhanka sare ee dabaqa. Isla markaana waxa uu tagayaa wiilkiisa isagoo koob shaah gacanta ku haysta waxa uuna u sheegayaa in hantidiisa kala badh ay siisay Baahubali hooyadii sida darteed uu la rabo inuu hooyadii dilo. Isla markaa uu hadalka maqlana aad ayuu uga naxaya waxa kale oo naxay dhammaan dadkii boqortooyada joogay. Isla markaana waxa uu imaanaya abaanduulaha kaasoo u sheegaya war ka nixiyay odayga waxa uuna ku dhahayaa berri waxa la rabaa in Baahubali lagu wareejiyo boqortooyada. Isla markaa uu odaygu intaas maqlana aad ayuu xanaaqaya laakiin abaanduuluhu isagoo wax hadal dhigin waxa iskaga soo tagayaa goobta. Isla markaa uu abaanduuluhu iskaga soo tago goobta waxaan arkaynaa isagoo oo la jooga boqorada taas oo u raadinaysa xaaskii uu guursan lahaa boqor Baaladeef. Isla markaana waxa isku soo shirnaysaa dhammaan boqortooyada iyadoo u diraysa waxyaabo kala duwan. Sidoo kale waxay u yeedhaysaa Baahubali iyadoo u diraysa mid ka duwan dadka kale waxay u dirtay waxayna u diraysaa safar ka fog boqortooyada. Ugu dambeyntiina isagii abtigi waa ay soo baxayaan waxayna soo gaadhayaan haro biyo ku yaalaan. Isla markaa uu harada biyaha arka waxa uu arkaya waji ka soo muuqanaya aad ayuuna uga naxaya. Abtigi ayaana bilaabaya inuu uga sheekeeyo qaladan iyo waxa ku dhacay iyo inay markaa amarka boqorkooda diideen la xasuuqay. Ugu dambeyntiina waxay soo gaadhayaan tuulo ayagoo iska taagan waxay si lama filaan u arkayaan gabadh boqorad ah taasoo laga soo dejinaya gaariga boqortooyada laakiin nasiib xumo meesha waxa imaanaya ciidamo kuwaas oo raba inay boqorada afduubtaan iyaduna waxay si geesinimo loo dagaalaysaa dhammaantood ilaa ay ka adkaato. Waxaana arkaynaa boqorad balaas dagaalyahanad aan si fudud lagu jabin karin inayba tahayba. Ugu dambeyntii waxa la soo qabanaya ciidamadii halkaas ay dadku u mahad celinayaan. Boqoradiina waxay si lama filaan u arkaysaa Baahubali iyo abtigiis oo ku dhex jira dadka ayaguna waxay u sheegayaan in ay leeyihiin hool la'aan. Ugu dambeyn waxay u soo qaadaysaa dhankeeda iyo boqortooyada si ay calashaan ayada u raacaan. Baahubali markuu arko bilicda boqortooyada aad ayuu uga helaya. Dhanka kale waxaan arkaynaa amiiradu inay ku dhiban tahay laba falaarood inay hal mar wada turto laakiin abtigeed ayaa u sheegaya inay waxaas macquul ahayn. Sidoo kale waxaan arkaynaa abaanduulaha kaas oo kala tustusaya dhammaan boqortooyada Baahubali iyo abtigiis. Baahubalina waxa uu iska dhigayaa qof doqon ah si aan loo dareemin inuu yahay boqor. Ugu dambeyntii waxa uu soo qaadanayaa seef waxa uuna tusaya amiirku sida loo kala jaro geed kaas oo qof kasta oo haliya uu kala jaro taas oo qof kasta oo haliyay ay qasab tahay inay kala jaro. Baahubali ayuu gacantiisa kor u qabanaya isla markaana waa uu kala jaraya isaguna aad ayuu ula yaabaya sababtoo ah weligii hadda ka hor ma uusan kala jarin geedkan. kadibna Baahubali abtigiis ayaa ka waalaya isaguna run ayuu u haystaa oo wuxuu moodaa inuu isagu kala jiro geedka. Habeennimadii markii la gaadhay waxaan arkaynaa amiirkii oo yaaban oo ku celcelinaya geedka seeftiisa sababta uu kala jaray ayuuna aamin laayahay. Ugu dambeyntiina waxa uu imaanaysa amiirada oo ka dalbanaysa mar labaad sida uu geedka u kala jaray maanta inuu ugu jaro toona u dhaqaaqinba waxa goobta si lama filaan u imaanaya Baahubali abtigiis kaas oo u wada macmacaan halka Baaladeefna uu daalay sidii uu raadinay gabadhii uu guursan lahaa laakiin ugu dambeyntii waxa la tusayaa sawirka amiirada. Isla markaa uu arkana waa uu ka helaya waxa uu taagan yahay waan ku arkay waan ku caashaqay. Markaas kadib waxa uu imaanaysa hooyadii taas oo dalbanaysa in la tuso isla sawirka gabadheed oo ka helay wiilkeedu. Isla markii la tusana gabadhu iyadu xataa waa ay ka helaysaa waxayna la dhacaysaa quruxdeeda waxayna iska soo jaraysaa inay u dirto hadiyado kala duwan oo ay ka mid tahay seef dahaba calashaan si ay ugu qanciso inay guursato wiilkeeda. Intaa kadib maalinkii xigtay waxa soo gaadhaysa fariintii loo soo diray ee ka timaaday boqortooyada Mishmati. Amiiradu waxay si lama filaan u diidaysaa dalabka ay soo dirtay boqorad Mishmati waxayna dhahaysaa u celiyo ma raba anigu seeftiinana waxaad ku jarjartaan basasha. Intaa kadib boqortooyada Mishmati waxa soo gaadhaysa fariintii ay u soo dirtay amiiradu taas oo aad uga cadhaysiinaysa dhammaan dadka ku noolaa boqortooyada. Dhanka kale waxaan arkaynaa Baahubali iyo abtigi habeenimada ayagoo jooga boqortooyada. Baahubali waxa uu dareemayaa in ay wax qaldan jiraan isla markaasna waxa uu soo dhaqaaqaya inuu badbaadiyo dhanka boqorada waxaana si lama filaan u arkaya ciidamo fara badan oo ku soo wajahan boqortooyada. Isla markaana waxa uu isku diyaarinayaa Baahubali dagaal isagoo wajahaya kumanaan ciidana isagii abtigi halka abaanduulahana loo sheegaya inuu si ilaaliyo boqortooyada. Ugu dambeyn Baahubali waxa uu la dagaalaya dhammaan ciidamadii ay boqortooyadu soo dirtay asagoo kaligiis ah. Waxaan sidoo kale arkaynaa boqoradu inay si lama filaan u soo toostay iyadoo kaligeed ah. Marka hore abaanduuluhu waxa uu ku dhex dhuumanayay dumarka laakiin marka uu Baahubali arko waxa uu soo baxaya si lama filaan ah asagoo u sheegaya dhanka ay cadawga ka jiraan. Laakiin Baahubali marka horeba waxa uu go'aansaday dagaal isagoo u horeeya boqortooyada naftiisa waxaana isla markiiba u dhiibaya seef isagoo markiiba ka qarsoomaya goobta. Waxaan arkaynaa inay cadawga isla markiiba soo gaadheen goobta waxayna si xun u garaacayeen abaanduulaha laakiin isla markiiba waxa uu sameynaya
sameeyaa weerar calis asagoo kumanaankii ciidanka ah la dagaalamay keligii kana badbaadinaya dumarkii kale waxaan arkaynaa amiirada oo la dagaalamaysa ciidan fara badan ayadoo keligeed ah waxaana hal mar si lama filaan u daadanaya kumanaan ciidan ah kuwaas oo Baahubali u laayay waxaana uu sheegayaa inaan lagu tuurin falaarta hal far ee lagu tuuro afar farood inta kadibna waxay ula dagaalamayaan si wada jir ah ciidanka waxaan arkaynaa Baahubali oo ciidanka amraya oo isagoo u sheegaya si hadii weerar kale ugu soo noqdo inay diyaar u noqdaan markaana waxa uu mahad celinaya boqortooyada iska lahaa isagoona u sheegaya inuu aad u maasan yahay kana badbaadiyo dhibka Baahubalina waxa si lama filaan u soo gaaray safariintaas oo ka timid boqortooyada Mishmati waxayna ahayd fariintu inay ciidankii baabiyaayeen ciidankiisii isla markaana waxa ka shaqeynaysa boqortooyada boqorada iyadoo waxay u sheegaysaa inuu isla markiiba cadeeyo aqoonsigiisa iyo cidda uu yahay boqorada oo seef ku haysta waxa si lama filaan u gubanay jidhkiisa halkaana waxa ka soo muuqanaysa calaamada boqortinimada iyo inuu yahay boqorka dhawaan dhaxli doona boqortooyada weyn ee Mishmati magaciisana uu yahay Mahendra Baahubali dhamaan dadkiina waxay adeecayeen amarkiisa ayagoo jilbaha dhulka u dhigaya xataa waxa jilbaha dhulka u dhigaya boqorka iyo boqorada isla markaana intayna u dhiginba waxa ka gaaray Baahubali asagoo u sheegay inaysan isdhibin boqoraduna halkaas waxay ku xaqiiqsanaysaa inuu Baahubali yahay dhaxal sugaha boqortooyada Mishmati markaasna Baahubali waxa uu ka soo kaxaynaya amiirada boqortooyadeeda waxa uu keenaya boqortooyadiisa halkaas oo ah meesha uu isagu ka talinayay waana meesha uu dhawaan si rasmi ah uga noqon doono boqorka dhamaan dadkiina markii ay arkaan gabadha uu wada waa ay la yaabayaan maadaama ayna Baahubali ku aqoon dhaqanada noocan ah Baahubalina waxa ugu dambeyntii u tagaya hooyadii asagoo halkaas uga soo ducaysanaya isla markaana boqoradu waxay u sheegaysaa gabadhu inay u dhaqaaqdo dhanka qofka guursan raba isla markiina ayadu waxay u dhaqaaqaysaa dhankaas iyo Baahubali laakiin intaysan u dhaqaaqinba boqorada ayaa joojinaysa waxayna ku dhahaysaa xageed u socotaa ayaduna waxay u sheegaysaa inay u socoto dhanka qofka guursan raba waana Baahubali intaas kadibna waxaan arkaynaa inay hadalkaas ka xanaaqda ayna ku amartay in la dilo isla markaaba waxay u soo dhaqaaqeen ciidanku inay dilaan intaysan dilin ka horna waxa meesha imaanaya Baahubali kaas uu sheegay qofkii dhankeeda u soo dhawaada inuu dili doono isla markaasna ciidamada waxay u baqayaan naftooda ayagoo iskaga joogaya goobta dhanka kale Baahubali waxa canaananaya dadkii boqortooyada joogay dhamaan dadkaasna waxa kamid ah Baahubali adeerkii kaas oo u sheegaya inuu maanta hooyadiisa dhashay ku soo afciliyay gabadh xundarteed Baahubalina waxa uu dhahayaa qofna rabi laguma qasbi karo hadalkaas oo hooyadii qalbiga ka sii jabinaya ugu dambeyntii hooyadii waxay ku dhaqaaqaysaa Baahubali inay ka caydiso boqortooyada maalinimadii xigtay dhamaan dadku waxay iskugu soo banaan bixeen si ay u arkaan maalinka lagu wareejinayo xilka Baahubali laguna wareejinayo Baaladeef waxaana halkaas laga wareejinayaa xilka isagoo lagu wareejiyay walaalkiis Baaladeef markii habeenkii la gaaro waxa uu aad ugu faraxsan yahay in lagu wareejiyo xilka boqortinimada halkaas uu aamini laayahay inuu yahay boqorka Mishmati ugu dambeyntiina halkaas waxa uu kula midoobay Baahubali gabadhii uu darteed boqortinimada iskooga daayay waxaana subaxnimadii xigtay arkaynaa Baaladeef oo u yimaaday Baahubali isagoona u sheegay in uu maadaama uu gabadhu jeclaa guursaday uu soo wareejiyo suldaannimada inta u dhiman ugu dambeyntiina Baahubali waxa uu halkaas ku wareejinayaa wax walba oo suldaannimada la xidhiidha waxa uuna boqortooyada dhexdeeda ka noqonayaa qof shacab oo iska caadi ah subaxnimadii xigtay amiirada waxa loo diidayaa inay gasho mandarka maadaama ay tahay Baahubali xaaskiisa Baahubalina uuna ku lahayn boqortooyada wax dhaxal ah hadda uu ka yahay qof shacab oo iska caadi ah waxaana arkaynaa ninkii laga dhigay amiirka inuu yahay nin aad u dhaqan xun kaasoo taabanaya gabadh walba oo soo gudubta bridge-ka waxa uuna farta ku safiiqaya markii la gaaro amiirada yacni adigana waan ku taabanaya oo cad waxaana arkaynaa inay si geesinimo leh faraha uga jirtay subaxnimadii xigtay waxa la soo saaraya maxkamadda boqortooyada halkaas oo la sheegayo in nin amiir ah faraha ka jirtay iyaduna waa isdifaacaysaa iyadoo sheegaysa nin amiir inuu gabadh ku xadgudbo inay tahay wax qalad ah intaas kadib waxa goobta imaanaya Baahubali dhamaan dadkiina waa ay ku farxayaan Baahubali markuu soo arko xaaskiisa jeebaysan aad ayuu uga xanaaqaya laakiin waa isdejinaya ugu dambeyntii waxa uu xaaskiisa weydiinaya sida ay wax u dhaceen ayaduna marka ay u sheegto inuu ninkan nin khaldan ah u tataabanay waxaana isla markiiba kaga jiray boqortooyada horteeda qoorta halkaasna waxa ku xanaaqay boqorka iyo boqoraduna aad ay uga xanaaqeen ficilkaas isla markaana Baahubali waxa loo sheegayaa inuu sameeyay ficil xadgudub ah taas oo loo baahan yahay Baahubali wax laga qabto ugu dambeyntiina waxa lagu dhawaaqayaa Baahubali in laga caydiyo boqortooyada asagoon isdhimo waxa uu soo wareejinayaa seefta inkastoo Baahubali uu ahaa amiir daacad ah oo aad u jeclaa boqortooyada haddana ma jabin karo amarka boqorada halkaasna waxa uu iskaga soo tagayaa Baahubali inkastoo ay hooyadii iyo shacabku dhamaan ka xumaadeen haddana waxa lagu qasbanaanayaa in Baahubali boqortooyada laga caydiyo markii uu banaanka boqortooyada u soo baxana waxa uu arkayaa kumanaan shacab kuwaas oo ku faraxsan joogitaankiisa halkan waxa uu Baahubali dhisanayaa boqortooyo gaar u ah taas oo ku dhisan farxad iyo reereyn sidoo kale waxaan arkaynaa in Baaladeef markii lagu wareejiyay boqortinimada uu galay damac aad weyn iyo inuu ka argoosto Baahubali sidoo kale waxa uu damcayaa Baahubali inuu dilo waxaan arkaynaa habeennimadan isagoo qorsheynaya dilka Baahubali waxaan halkaas ku arkaynaa aabihii Baaladeef iyo Baaladeef waxayna si dhuumasho u soo galayaan qolka hoostiisa ayagoo raba inay ku dilaan halkaas boqorka Baaladeef laakiin waxa loo dhigayaa dabin aad
aad u daran kaasoo ah Maldeef inuusan joogin meesha waxaana halkaas lagu qabanaya waxa isku dayaa inuu isdifaaco laakiin inta tabartiisa marka uu isdifaaco ugu dambeyntii waxa lagu dilayaa halkaas asagoo lagu soo afjaray noloshiisa waxaana loo sheegayaa boqorada in uu Baahubali soo weeraray una weerar ku soo qaaday hadii hadda wax laga qaban waayana uu hadhow ka sii dari doono boqoraduna markii hadalkaas maqasho ayadoo aad uga niyadjabsan waxa u yeelaysaa abaanduulihii kaasoo ah Baahubali abtigi waxayna u sheegaysaa inuu Baahubali soo dilo isaguna waxa uu dhahayaa intii aan Baahubali dilaa waxa iiga dhow inaad aan igi dishid waxa uu soo saaranayaa safetiisa waxay u sheegaysaa hadii uu Baahubali isagu dili waayo in iyadu gacanteeda ku soo dili doonto ugu dambeyntiina waxa uu aqbalayaa asagoo ku qasban dhanka kale Baahubali waxa loo sheegayaa in la rabo in la soo weeraro boqortooyada isaguna warka uu ka naxo waxa uu imaanaya xaaskiisa waxa uu ku soo macasalaameynaya halkaas waxa uu imaanaya goobtii loogu soo tilmaamay laakiin waxay noqonaysaa been waana la shirqoolay waxa uu halkaas ku arkay abtigiis oo xidhan xarig gacmaha ka xidhan iyo lugaha lana rabay in la dilo isla markaa uu isku dayo inuu ka furno waxa falaar laga dhufanaya dhabarka waxaana halkaas ka dhax qarxaya dagaalo fara badan kuwaas oo ay Baahubali iyo abtigi ay wajahayaan abtigiina isagoo koox waxa uu Baahubali halkaas ugu dhameynaya waxaana ku soo noqonaya qasriga asagoo wad safety dhiiga lahayd waxaana tusaya boqorada waxaana uu sheegaya inuu ugu dambeyntii hadalkeeda qaatay uuna soo dilay Baahubali ayaduna markii hadalkaas maqasho aad ay uga naxaysaa sidoo kale xaaska Baahubali markii ay maqasho ayaduna waa ay ka naxaysaa waxaana halkan ku arkaynaa inuu Baahubali la soo baxay wajigiisa kaasoo ahaa in uu dilo haddana waxa uu rabaa inuu dilo cunugeer ee Baahubali dhalay waxa uu ugu dambeyntii kala soo baxsanaysa isaga hooyadii abaanduulaha ayaana ka xajinay albaabka dhanka kale Baahubali waxa uu arkaya hooyadii oo rabtay inay ka baxsato badbaadisana cunugeer waxa uu ugu dambeyntii Baahubali ku soo dhameynaya halkaas ku soo gabagabeynaya nolosha hooyadii filimkan halkan oo ku soo dhamaanaya daawada haddaad ka heshay muuqaalka like saar sidoo kale channelka Mo Film subscribe ma sintiin daawashadaada intaan muuqaalkiisa xiga ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo